وأنا سلام على صاحبتها كحنا جنال كنا بداية أدي إنك يا جماعة علمنا سيد ونكسنا دول ساعتان مقالة برتن صادقة سودا بعد صاحبي ما تعرفين هذا الوضع وش يكون كي قدام بيار ما أفلامته ما دام ما لي قدام بيار نروح مقالة إذا الوضع صاحبي المركان وحنا يجي دونا شيء يكون كي قدام بيار ما أفلامته تياتر الهندية صارن يسدو كل ورركي قدام بأفلامته لقى قرا صاحبي بس أنت نوجد المقال كي عن كعسنا على جنال خصوص برت المقال كده تكيش لايك نوصر سي شير جري ولا وده صاحبته هذا سونا بعد صاحبي هدي نقول لنا أفلامته تياتر الهندية صارن أفلام وبين تياتر الهندية لصار أسبوع لصور في كميديا في داية مورجي تانديل بدس رافي كومار لوفيابا ديفا مركو حنا ايجي دونا افلام تسيل عجاي سحريين مع الماي تياتر هندي سارين دي قبل لما فيلم كو وري تانديل وكله مدشن مالنا يو تياتر هندي سارين وحو سحريين كبدن فتني شنكرر sidoo kale aflaamta kale waxa kamid ah badis raafi kumar oo hamish rashmi hogaamiye ku yahay mudashan maalin asiguna tiyaatarada saaran yahay in ka badan 7.5 karoor ayuu soo xareeyay Love American hogaamiye wiilkii uu dhalo hogaamiye ku yahay wuxuu keenay in ka badan 5.65 karoor saaxiib aflaamta kale waxa kamid ah Bidaya Murji oo ajid kumar hogaamiye ka dhankaas ka furindii weeyane wuxuu saaraya ama 6 maalin ayuu tiyaatarada hindi saaran yahay waxa uu keenay in ka badan 7 karoor saaxiib aflaamta kale waxa qayb ka ah filimka Sky Force oo Akshay Kumar hogaamiye uu ku yahay saaxiib filmkaasi 9 maalin ayuu tiyaatarada hindi saaran yahay waxa leeyahay waxa uu soo xariyay ama lacag uu soo xariyay waxa lagu sheegay in ka badan 111 karoor saaxiib aflaamta kale Deva ayaa kamid ah uu sheegay uu hogaamiye ku yahay markaan ayna filimkaasna wadarta guud inta maalin uu tiyaatarada saaran yahay waxa uu keenay in ka badan 33 karoor saaxiib aflaam dib loo saaray ayaa jiro kaas uu kamid yahay filimka jacaylka ay sanam tiri kasam saaxiib filimkan waa mid kamid ah aflaamta jacaylka soo baxay sanadii 2012 walow xilligaas oo guul dareystay laakiin dib ayaa tiyaatarada hindi waxa loo saaray jimcadii la soo dhaafay filimkan muddo 5 maalin oo tiyaatarada hindi saaran yahay waxa soo xariyay in ka badan 23 karoor taas oo ka dhigan filimkan inuu noqdo filim guul weyn gaaray ama guul weyn gaari doono wali filimkan tiyaatarada ayuu saaran yahay saaxiib oo go'aan laga gaari karo dhanka la daan sheekooyinka gooska arrimaha aflaamta laga qoray waxa maalintii shalay soo bandhigay motion poster ama qaab nooc min yani kaarta camal ah filim lagu magacaabo Kezar Vir kaas oo hogaamiye la koodihiin ninka lagu magacaabo Suraj Benjoli oo didiya Benjoli ama double waxa taqaan uu dhalay sidoo kale Sunil Shetty filimkaas waxa sidoo kale qayb ka ah ninka lagu magacaabo Bibo Kabra filimkan waxa la leeyahay waxa tiyaatarada hindi la saari doona 14 Maay bisha soo socota saaxiibayaal inkastoo marka hore la rajeenayo bishan hadda aan ku jirno 3 bishan Febraayo 13 keeda tiyaatarada la saaray hadana filmkan dib ayuu dhacay bisha soo socota ee March 13 keeda ay ama 14 keeda ayaa tiyaatarada hindi la saari doona saaxiibayaal sheekooyin kale waxa qayb ka ah saaxiibayaal 30 sano kadib waxa markale tiyaatarada hindi la saari doona filimka lagu magacaabo Indaas Abna oo mid kamid ah aflaamta faniga ama shactarada badan kaas oo ay sameeyeen Amir Khan Salman Khan gabadha lagu magacaabo Rafina Tandon iyo Karishma Kapoor inkastoo ay ku weeliyeen Shakti Kapoor iyo sidoo kale Barishra wal filmkan waa film comedy ah 94 ayuu soo baxay sanadan 2025 ayaa markale tiyaatarada hindi la saari doona waliba bisha Abriil sanadani saaxiibayaal sheekooyin kale waxa qayb ka ah ninkii John Abraham waxa la leeyahay filmkiisii The Diplomat waxa saaxada kala baxay ama hadalhaynta ka qaatay ninka lagu magacaabo Fisher Koshel filmkiisii Java saaxiibayaal filmkan oo John Abraham hogaamiyaha ka yahay rajeenay in daawado bisha soo socota ee March 7 laakiin waxa muuqata in filimkan inuusan hadal haysan waxa daaqada kala baxay Fisher Koshel filmkiisa Java kaas oo qayb ka leeyahay ninka lagu magacaabo Sheekana oo wiilka mastan saaxiibayaal dhanka la hadeen maanta oo kale aflaamta soo bax kuwada ugu caansan waxa laga xusi karaa filimka caanka ah My Name is Khan Shahrukh Khan ka jalay hogaamiyalkooda ahayn maanta oo kale 12 February sanadii 2012 ayuu soo baxay natiijaan hid ayuu noqday aflaamta kale waxa laga xusi karaa filimka Dag the Fire kaas oo isbuuc kor ama 2 isbuuc kor mar aan muuqaal ka diyaariyay bartaan soo gali maanta oo kale ayuu soo baxay 12 February sanadii 1999 natiijaan hid ayuu noqday saaxiibayaal hadaba intaas in soo gabagabaya muuqaalkayga fadlan haddaad ka hesho muuqaalka laagi noo saar sii share gareeyo labada asxaabtaada waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena